Hey, assalaamu nabadiin xariis korkiina haato qofkan idin hadlahay waa Saadiq Wadani iyo mar kale marka hore waxaan idinka raaligelinaynaa maalmahan anagoo fursad u heli kari weyne in aan fiidiyoyo fara badan idiin soo dubno ma garan kartaa macnaha ku jira qofka marka uu mashquul noqdo inta badan anaga fiidiyoyada waxaan usoo dubnaa inaan si volunteer leh ummadda dadka ku aftirsada soomaalinimada inaan ii sheeg aan usoo gudbino si ay uga faa'iidaystaan online sida lacag looga sameeyo maantadan waxaan rabnaa inaan ka hadalno titlkan wuxuu ka hadlayaa samee ama baro dropshippingka 101 sida dropshipping loo sameeyo koorsooyinkii aan bixin jirnay ayuu ka mid yahay course ka mid ah oo free ah idinkaga dhignay inaad ka faa'iidaysataan koorsigan asiga ah annaga oo samayn doono inaan AliExpress lacag baana kasoo qaadno alaab kasoo iibino aan dropshipping ku sameyno meesha loo yaqaano eBay ama Amazon okay iyo meelaha la halmaala sida aad taas aad wax uga ogaataan waxaan isku dayi doonaa inaan koorsigan iyada uga hadalno wahagaag intaanan meel dheer aana gaarin marka ugu horeysa aan AliExpress tagno usually AliExpress markaad tagtid waa inaad waxuun ku qordhaa annaga inta badan electronic ayaan xooga saarnaa markaas aan ugu dhufato pageka ugu horeeya kuu soo baxa mid ka mid ah ayaa waxaad ka raadinaysaa waxyaabaha aad u baahan tahay okay so wahagaag waxa aan inta badan xooga saarana kan oo kale electronic isaga dhufanaysaa inta badan asaa kuu soo bixi mise xagga hoose ayaad tegaysaa waxaad raadinaysaa wax ku anfaca is easy step okay waxyaabaha trendingka waana more to love waxyaabaha trendingka sheegi waa kana hataa huka waxyaabaha la cabo baaladan hadda ka hor aan ka hadalnay sida la muuqata fiidiyodeeni marka waxaan raadinaynaa wax yar oo iska macquula oo u baahan يعني lacag laga sameyn karo usually waxa markay indhahaaga qabtaan ay u muuqdaan kuwa lacag laga sameyn kara ayaad markaa lagu dhuftaa markaas aad alla doortaan raahda okay wahagaag gudahan u galaynaa waxaan raadinaynaa $2.46 muxuma laakiin pricekaas is very high price laakiin alaabtan way fiican tahay wahagaag so P9 kan naftiisa raadinaynaa this they call P9 laakiin priceka xagga looga iibinayo waa $2.49 aad buu u kulul yahay laakiin let's see yani inta maalmood uu baalkan soo socon doono waagaag March 18 to 14 buu March 13 to 18 waxaan isku dayaynaa inaan title ka qaadano aan meelaha ka raadino okay because priceka uu iibinayo iyo waxa meesha ku jira isma laha iyo timeka uu geenayo isma laha wahagaag waxaan arkaynaa sida xagga idinkaga muuqata baalkan P9 loo yaqaan in la iibinayo 0.99 okay waxa uu ahaan jiray $11.86 iyo markiis hore ahaa kalaradan kulligood waa isku mid iyo mid alle midka ka doorato 0.99 waxa uu tagayaa kalarka aad doorato isbedeli timeka haddaan kan dooran wuxuu leeyahay 13 ilaa 18 haddii aan redka dooranona sidaas buu leeyahay waxaa fiirsa xaggan fiiri markaan black ku dhufano timekuu isbedelaya wuxuu noqonayaa 11 to 14 okay 0.99 so black maadaama blacka uu ii sheeg iyo kalarkan xigeenka ah ana black pro max baa yiraahdaa asna silverkana waa sidaan saddexdaana ugu socotaba inta badan iyo bluega waxaasna waxaa lagu soo diri doonaa 11.14 so baaladan xagga waa aragnaa waxaan sameynaynaa waxaan qaadanaa titlekan asiga ah waxaan tegaynaa meesha loo yaqaano eBay maadaama alaabtan 0.99 la iibinayo timeka lagu soo ship gareynayo ay tahay 11 ilaa 14 waxaan tegaynaa meesha loo yaqaano eBay waxaan ka raadin doonaa eBay alaabtan okay xaggan ku dhufanaynaa titlekii aan soo qaadanay waxaan leenahay let's go wahagaag waxaa noo soo baxay alaabihii fara badan waxaan raadinaynaa ninka ugu iibka badan okay ninka ugu iibka badan which is this guy I believe sawir fiican buu saaray ninkana ugu iib badan $43 buu iibi 43 pieces kuwan kale Australia balaayo kale ka soo jibkareenaya wuxuuna u muuqdaa sawirka lamid ah okay waxaan leenahay ku dhufanaynaa US stag buu leeyahay waxaan fiirinaynaa waqtiga uu soo shibray waagaag markaan ku dhufanay waxaa noo soo baxay pagekii asiga ninkan waxa uu iibshay 3,918 feedback ayuu haystaa taas waxay ku tusinaysaa ninkan inuu muddo baalkan iibinayo okay ana
waxaa kaloo aragnay xaggan markaan gudaha usoo galnay inay 3 shay kaliya available yihiin. 3 shay aan ka hadlayno blue, black and rose gold and silver. Okay, 4 kaliya haya. So AliExpress waxaan kusoo baranay 4 ugu dhaqsiyaha badan. waxaa kaloo xagga ku aragnaa ayagana muhiim noo ah waqtiga uu soo gudbinayo. waqtiga uu soo gudbinayo alaabta uu qofku u keenaa waa 12 iyo 16. AliExpress waxaan kusoo aragnay 12 ilaa 14. so ninkan wuxuu extra qaatay 2 casho dheeraada haddii ay in case wax qaldamaan sida 2daas casho uu cover gareey. Okay, waxaa kaloo xagga nooga cadaaday ninkan inuu iibiyey 105 xabo 105 waa 105 xabo 105 ayuu iibiyey. taas waxay ku tusinaysaa alaabta ninkan inay aad ugu socoto oo AliExpress ka soo qaadayo asigoo ku soo qaadayo price-kan loo yaqaano 0.99 cents. 0.99 cents markuu ku soo qaado oo alaabtan iyada ah ninkan bluega colorka bluega uu hayay hadda xagga ka eegno waxay noqonaysaa in maalinta loo soo ship gareynayo inay noqoto March 11 ilaa March 14 dhexdeeda inuu alaabtan helayo. eBayna waxaa ugu qoran qofkan inuu March 12 ilaa March 16 alaabta helayo. qofkan waxa ay noqonaysaa in uu alaabtan yani wuxuu iibsaday 2 casho dheeraad 1 casho dheeraad xagga ka hormaray xaggana 2 casho dheeraad. so annaga waxaan dhigi karnaa March 11 to March 14 wax weyn ma aha. waxaan dhigi karnaa March 11 to March 14 ay alaabtan helaysaa. price-ka kaaga bixi doona waa 0 to 99 cents waa $1 wax ka yar marka loo soo ship gareynayo Minnesota aageeda. meelaha kale laga yaabo inay timekiina waxoogaa yar kasii yaraadaba haddii aad California iyo New York meelahaas u ship gareynayso. so waxay ku leeyahay free return waa soo celin kartaa. haddaan silverka yiraahdo haddana iyadana waa 11 March 11 to March 14 sida xagga nooga cad. ninkan haddaan ka doonano silver ama blue, ninkan doortay black and rose gold and silver. silverkan waxa uu leeyahay isla noocan iyada ah annagana xagga nooca noogu qoran silver waa noocan annagana nooca xagga noogu qoran silver waa ay isleeyihiin alaabta blue silver nooca silver meesha noogu qoran hadda xaggan eegto sawirkana nooca silverka waa ka isleeyihiin. so alaabtan iyada haddii aad ka soo qaadato $17 haddaad iibiso 17.55 oo aad qaado 99 cents dollar wax la halmaala 0.99 cents waxa ay profitkaaga noqon doonaa wax ka badan $12 marka laga jaro fiiga eBay ay kaa qaadi doonto. that's how you do actually saad aad ku samayn lahayd. sida ninkan ka aragtaa waxa uu iibiyey 105 pieces markaa ku dhufato $10 lacagta waxa ninka ka qaaday waa very much waxay u muuqataa mid iyada la halmaasha lacagta loo yaqaano $1000 oo alaabtan ka faa'iido kaliya. so waxa aan qabanin oo inventory meesha ku haynin. waa sida ugu fiican oo lagu barto oo loo yaqaano drop shipping ku samayso. waqtiga uu iibsado ninkan waa maantadan taariikhda waxa ay taagan tahay 3 bisha xaggan weygu ka iibsada alaabtan within 15 days gudahooda ay macaamilka ugu tagaysaa adoon waxba qaban. sawirkan ayaa inta ka soo qaadaysaa AliExpress waxa aad soo gelinaysaa meesha loo yaqaano eBay ama Amazon. okay, labada midkood marka aad soo geliso and then from there waxaad alaabtii marka laga iibsado ayaad xaggan imaanaysaa. ninkan ayaad lacagta siinaysaa waxaad u gelin doontaa addresska qofkii aad u ship gareynaysa ayaad gelinaysaa. markaas kadib macaamilkii ayaa alaabta loo diraya. shipping ma bixin oo only thing ka baxdo waxay tahay website-kan waxa laga qaatay $1. website-kan waxaad ku heshay website-kan eBay-na waxaad heshay 17.55 marka eBay feegeeda wixii laga jaro waxa xaggan kaaga soo hari doona $12 exactly la hubo. okay, so xaggana waxaa ka bixisay $1 xaggana waxaad ka heshay $12 marka price-kaasi eBay feegeeda laga jaro. that's how you do AliExpress drop shipping. hey haddii aad u baahataan aad xiisaynaysaan inaad koorsooyinkeena aad ka mid noqotaan fadlan sida ugu fudud oo aad samayn karto haddii aad YouTube naga daawanayso fadlan tag page-keena waxaad ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay Linktree. waxaad dhawaan ka arki doontaa koorsooyinka aan soo wadno. haddii aad koorsooyinka aan soo wadno aad weli ka arag fadlan sida xaggan ku xusan aad ka arkaysid waxaa arkaysaa channeldeena YouTube-ka haddaad u baahan tahay more video inaad ka daawato iyo TikTok haddaad u baahan tahay inaad video fara ka daawato. haddii aad u baahanto inaad balan nala qabsato 1 by 1 si aan kula hadalno ama email ama aan kuu soo galno Zoom-ka aan wada hadalno aan ii sheeg 1 marka xogaa yar uu ka yara kulul yahay marka
aad koorsooyinka aan xaggan soo gelino insha allahu tacaala dhawaanahan koorsooyin ayaan soo gelin doonaa taxanaha sida dropshippingka loo sameeyo haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraada fadlan xagga ku dhufo meesha email ku qoran tahay kadibna nala soo xiriir ama ballan qabso meesha xagga ku qoran tahay ballanta qabso marka uu pagekan kuu soo baxo waxaad arkaysaa maalmaha keliya annaga aan available-kana waa khamiista iyo sabtida labadaas maalin ayaad ballan ka qabsanaysaa waqtiga ay kugu habboon adoo ka tixraacanaya waqtiga North America iyo meel alla meesha aad dunida ka joogto sidii ganacsi loo samayn lahaa sida ugu fudud fiidiyowadana arkaysaan inta badan soo gudbina ayagana waa kuwa wax ku ool ah oo inta badan ka hadla ana ituso itaabsi haddii aad jeceshahay more deeply inaad gudaha usii gasho ama haddii fiidiyowadan ayaga ku saacideen fadlan ana nala socodsiiya asweel sidaan noocyadaan oo kalena aan ayagana inta badan u soo gudbino صادق وداني أصحابتي سه وين ذا هاي فضلا عقلك هالشقة يمكن حلوك الشقة